kooxda Arsenal waxa uu soo hambeliyay fanaanka Soomaaliyeed Keenan kadib markii heestiisa ayagoo qaadayo ay ku dabaaldegayeen xafladahoodii markii ay koobka ku guuleysteen. fanaanka Keenan waxaa laga yaabaa inuu taageero kooxda Arsenal. Soomaalida 70% waxay taageeraan Arsenal, kooxda Arsenal, iyo sidoo kale waxaa jirto qaybo yar oo taageeraan United oo Soomaalida ah oo wax yar oo lagu qurxiyay. Marka dadka Soomaaliyeed waxay u badan yihiin Arsenal. dadkii hore dhalinyarada hadda Arsenal waxa waaye yacni kooxda Afrika ugu badan waa. heesta weyn fanaanka Soomaaliyeed ee Keenan wuxuu u sameeyay Soomaaliya iyo asaga nafsadiisa. heesta markii la arkay dhiirigelin inay tahay waxaa loo bedelay hees loogu talagalay dhiirigelintii World Cup-kii 2010 ee lagu qabanayay Afrika. fanaanka Soomaaliyeed marka heestan kooxda Arsenal ciyaartooyda waxay noqotay dhiirigelin inaba caadi ahayn. heestaana hees la barbar dhigo ma jirto oo World Cup-ka laga qaadi karo. dadka waxay taagan yihiin waa heesta number 1 ka ah. fanaanka Soomaaliyeed Keenan asagoo la joogo fanaanka Travis Scott oo saaxiib la Rihanna asagoo la joogo fanaanka Soomaaliyeed oo u soo hambeliyay bartiisa Instagram-ka walibana dhowr mar ay u soo hambeliyay kooxda Arsenal waa koox inaba caadi ahayn oo waaweyn ka ah.